The power of information, it's here with you. Garissa Times Tube channel brings you updated news as it happens. Whatever you just need to like is just click the like button, then give us a subscription at the bell sign. Then from there, the story are gonna be flowing in as we update you day to day. xubin ka tirsan jirka haweeneyda ninku hadduu taabto ay isla markaaba jeclaanayso miyaad garanaysaa oo ragga in badana ka mid ay ka khajilaan waxaa la yiraahdaa waa xubinta ugu fudud ee lagu kasbado haweeneydu inay ku jeclaato walow ninkaasba xoolo ayuusa haysan hase yeeshee xubinka hadduu taabto haweeneyda ka mid ah si waxa u jeclaanaysaa kal iyo laaba haweeneydu waxa weeye qayb aan qaybsamin xaaladaha dhammaan oo ka mid ah mujtamaca waxayna haweeneydu tahay aasaaska ama gundhiga bulshada sidoo kale waxay tahay haweeneydu meesha maskaxda bulshadu ay ka soo aasaasanto waxayna ka mid tahay haweeneydu makhluuqaadka kuwa ugu fadli badan oo ugu wanaagsan taariikhda soo socotay adduunyada xaalado kala duwan bay haweeneydu soo maraysay ilaahay baa abuuray rag iyo dumar si midka kale kan kale u dhammaystiro ilaahay baana u fududeeyey aalado ay isku soo jiitaan ilaahay baa tabaaraka wa tacaala u fududeeyey wadooyin ay u maraan si ay nolol dhammaystiran u wada aas-aastaan oo dunidan guudkeeda intay ku nool yihiin ay ku noolaadaan sharaacida ilaahay soo dejiya dhammaan waxyaalihii ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa si loo nidaamiyo calaaqada iyo xiriirka ka dhexeeya rag iyo dumar oo loo wanaajin lahaa si labada nooc ay awooddooda iyo wakhtigooda ugu bixiyaan raaligelinta ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo wixii ilaahay u abuurtay sidaas oo ay tahay haweeneyda ooma baahna wax weyn ama wax mucjiso ah ama hadal la isku dardaray oo la qurxiyey oo laakiin gudihiisa uu eber yahay si ninku u fahmo nin iyo kaama rabta haweeneydu hadalla waaweyn aad isku xirtid iyo mucjisooyin inaad u keentid iyo hadalla la qurxiyey laakiin uurka ka maran inaad u keentid si ay kuu fahanto haweeneydu intaa kaama rabto hadallada noocaas iyo dhaqanka noocaas ka dooni mayso adigu laakiin waxa is leedahay waxaad la timaadaa falsafo iyo erayo la isku xirxiray si aad u fahantid tilmaamaha haweeneyda oo aad u soo jiidatid taasi kaama rabto waxa weyn ka rabto waxa weeye caqli fakaraya inaad yeelatid qalbi wax garanayana inaad yeelatid wacyi aragti dheer lehna inaad yeelatid intaasun bay kaa doonaysaa waxaase isweydiin mudan xubinka ugu weyn ama ugu badan ee haweeneyda aad ku soo jiidan kartid wuxuu noqon karaa waa ay noqonayso in haweeneydaas inay nafteeda ku dhiibto waxaa weeye xubinkaas qalbigeeda ninku hadduu taabto haweeneyda qalbigeeda ou gaaro haweeneydaas isla markiibay jeclaanaysaa marka qalbigeeda si xaqiiqo ah haddaad u soo taabatid haweeneyda way ku jeclaanaysaa walow xoolayaada haysane waxayna noqonaysaa mid kaa daba dhacda ee nin yahow maskaxdaada ka shaqaysii khiyaaliga iyo beentana iska daa iyo dhalanteedka aad ku nooshahay qalbigeeda ha burburin qalbigeeda ha dhaawicin qalbigeeda ha garaafayn u ilaali oo u nadiifi oo u xafid haweeneydaas abidkaa ku hilmaami mayso weligaana way ku jeclaanaysaa haweeneydu ma kaa rabto inaad u dejisid hadallo aad isku aadaadisay oo ayada aad doonaysa inaad ku gaadid ama geeraarro iyo erayo kale inaad isku soo duudid oo aad u qaadid haweeneyda si ay kuu jeclaato intaa kaa dooni mayso haweeneyda waxay doonaysaa nin qalbigeeda soo taabta iyo caatifadeeda iyo dareemayaasheeda kadib waxay dareemaysaa inaad adigu noqon doontid qalbigeeda waxaa ka soo burqanaya kii fahmi lahaa tusaale oo kale haweeneydaada nin yahow waxaad u noqotaa mid dhegaysta oo weliba si wanaagsan u dhegaysta oo dhegta u raariciya weliba hadalkeedana ihtimaam iyo muhiimad siiya walow hadday doonaysaba ha ka sheekayso arrimo adiga agtaada aan muhiim ahayn hadday doonaysaba arrinta ha ka sheekaysee dhegta u raarici si wanaagsanna u dhegayso ha ka sheekaysa hadday rabto waxaan adiga qiimo kula lahayn laakiin ayada qiimeeya qalbigeeda marka waxaad gaaraysaa inay ku jeclaato si degdega hadhihin waxaa ha ka sheekayn naga daa hadhihin nanaga daa waxaad ka sheekaynaysid hadhihin weligaa wax xunbaad ka sheekaysaa hadhihin weligaa arrin aan qiimo lahayn baad ka sheekaysaa caqligaadu waa sidaas hadhihin dhegayso markaad dhegaysatid dhegtana u raaricisid ku dareentana inaad muhiimad siinaysid walow waxa ay ka sheekaynaysaa ama ay kuu sheegayso wax yarba ha ahaadeene way ku jeclaanaysaa qalbigeeda ayaad dhex degaysaa kadibna waxay noqonaysaa nafteeda inay ku siiso oo ay kugu kalsoonaato walow xoolayaada haysane dhammaantiin waxaan idiin rajaynaynaa nolol wanaagsan oo deggan waa idin jecelnahay dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan jasaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu